maxkamadda waxa uu caddaatay kow in faldambiyeed dhacay eedeysanayaashuna yihiin kuwii geystay. labo in eedeysane Saadaam oo maqana ah uu si sharci darro ah doontaas ku soo geliyey biyaha Puntland kuna saaray 2 nin oo ilaalo ah oo aan ka mid ahayn ciidanka dowladda Puntland. 3 in labada marxuum ee kala ah Cabdixakiin Saynow iyo marxuum Yoonis Suhayn ay ahaayeen kabtan iyo kabtan ku-xigeenkii doonta iskuna dayeen inay ka baxsadaan ciidanka dowladda Puntland sidaasna ay ku dhinteen. haddaba xukunka maxkamaddu waxay xukuntay sida tan hoos ku qoran. maxkamaddu waxay ku heshay eedeysanayaasha dhammaan qodobadii lagu soo eedeeyay ee kala qodobka 185 189 505 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo xeerka kalluumaysiga dowladda Puntland. waxayna ku xukuntay kow maxkamaddu waxay ku xukuntay eedeysanayaasha kala ah Cabdiqaadir Maxamed Faarax in Faadumo Yuusuf 37 jir ah iyo Cumar Maxamed Axmed in Maryam Axmed 20 sano jir ah midkiiba 3 sano oo xariga iyo ganaax dhan $2,000. 2 maxkamaddu waxay ku xukuntay Saadaam Cabdi Goonyo Cadde maqane 5 sano oo xariga iyo ganaax dhan $5,000 oo ka bilaabanaysa maalinta la soo xiro. maxkamaddu waxay ku xukuntay dhammaan 15 eedeysane ee u dhashay dalka Iiraan ee baxrida ah ka doonta Al-Yaasiin midkiiba $500 oo ganaax. 4 sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay doonta Al-Yaasiin ganaax lacageed oo dhan $70,000. sidoo kalena waxay dowladda Puntland u xukuntay kalluunka saaran doonida. 5 maxkamaddu waxay u xukuntay dowladda Puntland labada qori ee AK-47 ah ee lagu soo qabtay eedeysanayaasha. 6 maxkamaddu waxay xukuntay in labada marxuum ee kor ku xusan ay ku dhinteen iyagoo baxsad ah waxayna ku xukuntay dhiigooda hadur. maxkamaddu waxay aqbashay codsiga ehelada labada marxuum oo ah in ay qaataan kuna aastaan dalkooda Iiraan. laamaha immigrationkana waxaa la farayaa inay u fududeeyaan sidii looga saari lahaa dalka. waxa ka furan qaadasho rafcaan muddo 30 cisho xukunkaas.